ururka haweenka nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug oo iyagu door weyn ku lahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta ka dhaqan gashay sanadihii u dambeeyay gobolka Mudug ayaa haatan wada dadaal ku ah sidii nabadda iyo dib u heshiisiinta loo gaarsiin lahaa deegaanada fofog ee miyiga ee ku yaala gobolka Mudug kuwaas oo mararka qaar ka dhacaan dilal iyo dhibaatooyin kale kuwaas oo salka ku haya muran la xiriira dhul daaqsimeed iyo cilmi biyoodyo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug Xabiibo Maxamuud Cabdi Koonfurow oo wareysi gaar ah siisay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaana ugu horreyn ka warramaysa dadaalada haweenku ay ka qaateen nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo sidoo kale haatan ay ku xoojinayaan askaynta iyo dib u heshiisiinta nabadgelyada gobolka Mudug. Bismillaahi Raxmaani Raxiim waxaan horta salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka Mudug ee degmada Gaalkacyo haddaan joogo waxa weeye annaku ilaahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin meeshaan waxaan joognay ilaahay intuu nagu abuuray ayaan deganayn dhibaato intaan la soo kulannay waxaan maanta meeshaan kusoo koobi karno ma ahan degmadan Gaalkacyo dhibaatooyin adag ayaa nala soo maray alxamdulilaahi maanta waxaan joognaa nabad iyo barwaaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu dhameeyay nabad ayuu noogu bedelay colaadii maantana waxaan ku noolnahay nabad iyo barwaaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmahayagii iyo dadkayagiina way isdhex marayaan deegaankayagii iyo ganacsigeena maanta waa wada socdaa waa wada shaqaynhayaan waxaan joognaa maanta meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu xamdi shukri noqnay taas way jirtaa waxaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo awal waxaan tuulooyinka keenay wacyigelin aan uga digay dadka tuulooyinka colaadaha iyo dagaalada soo noqonhaya inay ka waantoomaan haddana waxaan haddii ilaahay yiraahdo waxaan jecelnahay inaan tuulooyinka aadno oo kaalin weyn ka qaadano oo dadka tuulooyinka degmooyinka degan inaan wacyigelin soo siino reemiga ah waayo colaadu hadda guriga ay joogto ka socoto aad iska moosin gurigaaga kugu imaanaysa marka sidaas daraadeed gabdhaha waxaan aadnaa tuulooyinka iyo degmooyinka colaaduhu ka socdaan haddana waxaan jecelnahay meelaha colaaduhu ka soo socdaan inaan ka hortagno oo aadno haddii ilaahay yiraahdo saas ayaan jecelnahay waxaan ugu baaqayaa nabadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna siiyay in laga shaqeeyo oo loo istaago oo wax allaala wixii meel colaad ka dhaca dhan aan ka hortagno oo tafaa u xaydino sida ilaabataas ilaahay noo soo gaarsiin. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.